bal aniga ahaan shakhsiyan sidii aan businesskani ku bilaabay iyo bal maanta heerka uu joogo ayaan rabaa inaan idinla sheer gareeyo. waxaan rabaa su'aalo yar oo isweydiinaysaan inaan idinka jawaabo insha allahu tacaala. ood isleedihiin ninkan cusmaan waa kuma, sidee ayuu ganacsigani ku helay ama fursadani ku helay, maxaa ku khasbay isagoo qurbo jooga ganacsigani inuu bilaabo oo wadankii ka bilaabo, maxay ahayd caqabadii ugu horeysay ee ka hor timiday maalintii uu bilaabay, maadaama tihiin dad ma garanaysa waxa weeyaan cusub badankiin oo qof walba caaw ka fikirayo ama ay caqabad gooniya haysato laga yaabo. marka inaad isweydiinaysaan su-aashaasi waa suuragal oo ma garanaysaa adiga laftiga caqabadaas inay ku haysato aniga ay haysatay maalintii aan bilaabay ganacsigani ayaa suuragal ah. caqabadaas haddaanan kasoo gudbinna de walaalayaal miyaan maanta halkanaan joogo ma yimaadeen caqabadda haddaanan kasoo gudbin. marka caqabadii ugu horeysay ee maalintii hor timiday maxay ahayd? maantase ganacsigaygii halkuu maraya, halkuu istaago maanta uu joogaa, maxayse tahay hiigsigayga nololeed ee aan ka leeyahay ganacsigani. sidoo kale sanadkan aynu hadda ku jirno maxaa waxyaabaha ugu waaweynaa ii hirgalay maxaa ka mid ah? bal intaasaan rabaa inaad su-aalaha ina isweydiinaysaan ba laga yaabaa soo ma maasha allah. inaan su-aalahaas yar iniga jawaabaan walaalayaal doonayaa oo idinla sheer gareeyo maadaama businesskeenanu yahay share with the others, inaad dadka kale la wadaagto guulaha iyo barwaaqada nimcadan taalla. dad badan baa ka hurda, dad badan baan ogeyn, dadkaan ogeyn ayaan ogeysiinaynaa, dadkaan ma garanaysa ku baraarugsanayn baan leenahay walaalayaal. haddii aad fursadani aad u bixisaan waqtiga ay u baahan tahay iyo dadaalka ay u baahan tahay, runtii waa meelaha aad nolol dhammaystiran ka samayn kartaan, waa meelaha aad guulo waaweyn ka xaqiijin kartaan baan leenahay insha allahu tacaala. marka insha allah sidaas way sababta ka dambaysa inaynu wanaagga iyo khayrka walaalayaal wadaagno insha allahu tacaala haddii ilaahay qadaro. runtii aad bay u adag tahay qofku inuu ma garanaysaay kula wadaago waxyaabaha personalkiisa, laakiin insha allah businesskani waxyaabaha ganacsiyada kaga duwan wey. su-aasha ugu horeysa walaalayaal bal sidee baan anu ganacsigan ku helay ama sidaan ku bilaabay? runtii aniga wiil walaalkaya oo aanu aad saaxiib u ahayn, aadna iskugu dheerayn, oo wadankii safar ku baxay ayaa ma garanaysaay hadiyadii wadankii iga keenay ayuu noqday the best gift. hadiyadii ugu wanaagsanayd uu ii keenay waxay noqotay Forifa. dad badan oo qurbaa jooga waxa laga yaabaa in waxyaabo badan oo kale loo keeno oo hadiyado kale loo keeno, ani laakiin hadiyadii la ii keenay ugu weyneyd Forifa ahayd walaalayaal. markaan weydiiyey wadankii maxaad ka sidaa, wuxuu ii sheegay inuu shirkadan ka sido oo shirkad weyn oo caalami ah oo qurbaha dhan ka hawlgasha in wadankii hadda laga furay oo masha allah aad u shaqaynaysa. dad badan oo weliba dhalinyaro u badana ay hogaaminayaan oo reedna go-aankii isagu qaatay, isagoon xataa ninkaas wuxuu ahaa ninkaan iskugu dhownahay buu ahaa, dadka waan ma garanaysaa ninkaan iskugu dhoweyn buu ahaa maasha allah. marka ninkaasi kelidii buu go-aanka qaatay. sababta uu kelidii go-aanka u qaatay waxay ahayd aniga waan fashilmay sanadkii ka horreeyey bishii 2018 ayaan soo fashilmay, isku dayo fara badan oo sameeyey baan kusoo fashilmay. marka wuxuu ka baqayey in aniga fashilkii ugu yimiday iyo ma garanaysaa niyad jabkii soo gaaray iyo isku dayadii iyo ma garanaysaa wax weyn qofku markuu hami leeyahay markasta inuu waxbu isku dayaa, markasta waxbu inuu curiyo isku dayaa. marka waxyaabihii hore igu hirgeli waayey ee uu ogaa lacaga badanna ay iga khasaareen, ee uu ogaa negative fara badan xaggayga inuu ka yimaado oo ganacsigiisa dhaawacdo ayuu ka baqay. sababtaa awgeed markuu bilaabay ee uu bartanka marayo ayuu ila sheergalay oo go-aanka waan qaatay. marka tala kuma lihi, soo gal weeyaan wax kale ma jiro, ama soo gal ama joog wey. warbixintii intaan markuu siiyey Google-kan galay waan baaray, waxaan arkay markiiba in shirkad weyn tahay ma garanaysaa Paris ku taalo, xaafadda 13 ku taalo, xarun weyn ku leedahay. sidii baan ku ogaaday maasha allah tabarakallah. isla weeygi gudihiisii dalabkayga baan dirsaday, YouTube-kan galay maasha allah. waxa weeyaan gabadhan hadda aan idin tusay ayaan si fiican u daawaday walaalayaal. gabadhan aan aniga daawaday ma garanaysaa iyadoo YouTube-ka ku jirta. gabadhan Jane Balada, Jane Leach, ninkana waa odagayga weeyi oo $1 milyan ku guuleysatay. dhanaan luqadda Ingiriiska xogaas kaga fiicnaa YouTube-kan galay. marka gabadhaas aad iyo aad ban maasha allah war shirkadda intan leeg waxana ummado cad iyo waxana ma garanaysaa adduunka ka shaqeynayaan wadankii haday joogto baan idhi waxa weeyaan waa fursad weyn ka faa'iideyso. horaan ka bilaabay laakiin bilaabaye markuu qofku bilaabaya cabsidu way iska badan tahay. marka qeyr in badan oo idinka midana waxa weeyaan weynayna haysata laga yaaba fursadda muhiimka maanta guulaha waaweyn aan ka gaadhay waxa weeyaan
dirqiba ku sigatay in ma garanaysaa aan ka faa'iidaysan waayo sababtoo caqabadaa jira markasta caqabadaa ku hor imanaya waayo markasta guushu iyadoo bisil miiska kuma hor imanaysa inaad bislaysatay kaa doonaysa iyadoo qeyriin bay ku imanaysaa laakiin adaa lagaa rabanaya inaad si fiican u karsato caawa iyadoo qeyriin bayna hor taallaa idinkaa laynaga rabaa inaad ma garanaysaa si fiican dheriga u bislaysaan insha allahu tacaala marka aniga caqabada ugu weynay hor timid maxay ahayd ee markaa ee odhan gaadheen no waayo waxyaabo badan oo qalbigayga iyo wadnahayga wax ku jiraan waxay leeyihiin yes you can do it yes you can do it wax badanna waxay ku odhanayaan no you can do it ma samayn kartid bay ku odhanayaan marka ma samayn kartidda ugu weyne xaggay ka imanaysa aniga waxay sababta ugu weynay macaamil ma haysatid waa ganacsi weligaa ganacsi hore uguma soo jirin ganacsigan waddankiiba ayuu ka shaqaynaya qurbaha kama shaqaynayo oo soomaali badan oo hadda qurbaha wadda ka shaqaysaa ma jirto alaab ma iibin kartid alaab inaad iibisa lagaa doonayaa siad alaab ku iibin kartaa siad uga gudbi kartaa waxyaabahaasoo dhan most of you maanta inaad isweydiinaysaan baa suuragala waan isweydiiyey walaalayaal su-aashaas waan isweydiiyey si adag baanan isku weydiiyey waana su-aasha caqabada ugu weyn bay ahayd ani ma ahayn caqabada ugu weyn lacag la-aan ma ahayn oo ma garanaysa $430 waan haystaan ku bilaabo lacaga ka waaweyn baan meelo kala geliyey oo iga khasaaray marka $430 aan mustaqbalkay ku tijaabiyo wax alliya waxaan u arkaya ma jirto haddaba waxa batay yeestiiba badatay waad samayn kartaa waanad ka gudbi kartaa caqabadaasaa badatay alxamdulilah ilaahay baan ugu mahadnaqayaa ilaahay baa waafajiyey waafajintu xagga rabbi weeyi maalinta haddii ay badnaan lahayd ma samayn kartid waddankiiba ma joogtid shirkadana waddankiiba ka shaqaynaysaa macaamiil alaabta ka iibsatay ma haysatid haddaan waxyaabaha isku qancin lahaa siad u iibin karta haddaan isku qancin lahaa runtii maan guulaysteen waxaan ka fikiray alaabtan aan waddankii aan ku iibiyo oo halkaa waddankii laigu iibiyo aniguna aan internetka galo oon social media galo oon facebooka galo oon meel walba galo oon ma garanaysaa caalamka la jaan qaado ayaan bartay waxa go-aankaa igu dheliyeyna wuxuu ahaa walaalayaal fashil la hore oo iga soo qabsaday awgeed ayaa ma garanaysaa waxa weeyaan wadada qaldani waddo xun bay wadada qaldani waddo wanaagsan bay kugu ridaa waddooyin qaldan oon qaaday baa ugu dambeyn igu soo riday waddada saxda ah marka maasha allah alxamdulilah baan leehay inaan ma garanaysaa imtixaanaad kale aan soo maray sababta haddan imtixaanaadka hore aan soo marin oo aniga dhibaatooyin badan inay iga soo gaarin oo social mediana dhibaatooyin badan iga soo galin sida looga shaqaysto social media maan bartin halkaasaan kusoo bartay markaan soo jabay baan soo bartay markaa si positive ayaan uga faa'iidaystay markii dambe alxamdulilah markaa sababta ugu weyn ee aniga ay soo gelisay waxay ahayd anigu waxaan aaminay markaa ma garanaysaa inaan awood u leeyahay social media anoo adeegsanaya inaan samayn karo team laakiin aanan awood u lahayn inaan ma garanaysaa alaab iibin karo marka sida alaabtii ku iibin kartaa labadiiba ma kala maarmayaan alaabtii waxaan go-aan ku gaadhay wiil walaalkaya oo alla daaye hargeysa jooga shaqaale ah inaan isaga halkaa u dhiibo oon idhaahdo ma garanaysaa walaalo waxa weeyaan alaabtan iibi ku idhaahdo ayay noqotay isaga laftigiisa uu ka gowsaadayga laakiin waxaan isagana u sheegay in ma garanaysaa isaguna uu bilaabo labadiisiisii markaa qofkii ugu horreeyin diiwaangeliyey wuxuu noqday walaalayaal isaguu noqday lamber 1 isagaan ka bilaabay sababta waxa weeyaan de lacagtaydii un bay haydo isagu maan isku daba qoray marka waxaan ku yidhi isaga alaabta adiguna iibi aniguna waxa weeyaan page baan samaysanayaa saasaan ku iibinayaa oo ganacsigayga uga faa'iidaysanayaa very simple oo aan maasha allah ku ballaadhinayaa isla 2 bilood gudaheed darajada supervisor ka noqday maasha allah tabaaraka allah maasha allah gabadhii aan qofkii ugu horreeyey wiilkaa ku xigtana maanta waa manager in diiwaangeliyey she's manager Zainab waa dadkii ka farcamay inantii ma garanaysaa aan beriga silnay meel kalena iskama helna social media youtube-ka comment yar ku soo qoray fursad ganacsi aan ku soo qoray ayaa markiiba iga soo raacday waan ma garanaysaa u sharaxay sidii wanaagsan margu sharaxay fursadda say tahay isla maalintii ku xigtay alaabtii bay dalbatay maasha allah qofkii ugu horreeyay diiwaangeliyeen si fiican u qanciyey ayay noqotay alxamdulilah marka aniga waxay ii diidi gaadhay maalinta iga hor joogsan gaadhay waxay ahayd alaabta ma iibin kartid laakiin waxay soo gelisay sababteed waxay ahayd network baad samayn kartaa team baad samayn kartaa laakiin muddo ka bacdi markaan supervisorka noqday waxaan ogaaday in ma garanaysa social media intaan ka ogaa anigaba aanay ahayne ay wax kala jiraan waxaan ogaaday inaan page samaysan karo waxaan ogaaday inaan promotion u samayn karo waxaan ogaaday inaan master cardkayga iskaga xidhan karo waxaan ogaaday alaabtaan doono inaan iibin karo maanta haddaan doonayo $1 alaaba inaan iibiyo isla just now inaan iibiyo haddaan doonayo waxaan ogaaday inaan anigu gacanta isku hayo oo dhaqaalaha yare facebook aan gelinayo una iga xigto alaab badan inaan iibiyo inaan team badan haddaan maanta doonayo inaan sameeyo waxaan bartay inay iga xigto inaan pagekayga yar ku xayeysiiyo oon promotion u sameeyo
oo Soomaaliya oo dhan gaarsiinayo oo igu soo xirayo oo dadku iyagu soo raadsanayaan ma sha Allah tabarakallah taasan ogaaday maalintii ugu horreysay bartayna in ogaaday inaan ma garanaysa promotion ku xiro karo Facebook-gana maalintii albaab weyn u balaqmay ee uu furmay ganacsigayga ahayd maalintii ballaadhmay bay ahayd maalintii ay barwaaqadu bilaabantay bay ahayd marka walaal halka maxaynu ka baranaynaa casharka halka ku jira waa maxay casharka halka ku jira waxa weeyi maanta sidaad u malaynaysa ma aha sheekadu maanta markaad u joogto fikir qaldan baad qaadan kartaa aniga maalintii haddaan fikirka qaldan qaadan lahaa maanta aan kula hadlayo waxaan aaminsan alaaba leela labtan doon inaan iibin karo hal production wiiga soo dhigay oo Sinan la yiraahdo intaasoo macaamiil ay la soo xiriiray oo dhammaantood Muqdisho jooga way Muqdisho gudaheega ku xayisiin anigu Faransiis jooga ayaan Muqdisho gudaheega ku iibinaya Hargeysa gudaheega ku iibinaya laakiin maanta businesska soo galay mataasana aaminsana kaamiyana aaminsana dhici doonto maya sababtoo ah bilaadan baan ahay meel dhow wax ka arkay Soma laakiin maanta maxaan arkayaa way isfurfurtay albaabadii adu maanta maxaad haysataa qof kule ana qaldan maalintii u fikiray laakiin maanta saas weeyaan walaalayaal haddaba haddii aan iniga warramayn yar maanta walaalayaal iyadana ganacsigayga halku marayo ma sha Allah runtii ganacsigayga waxaan bilaabay anigoo shaqo kale ku jira party time ban ayaan gelin jiray walaalayaal waqti yar party time ayaan gelin jiray oo ma garanaysaa xilliyada breega wad garan kartaa intiina qurbaha joogta qofka bilaadankii waxa weeyaan qurbaha jooga way adag tahay inuu ma garanaysaa uu laba shaqo isku dhex wado inuu maamulku u dhex isticmaalo aad bay u adag tahay walaalayaal haddii lagu arko waa laga eriyaa digniin lagu sii laga marka koobaad marka labaad albaab markaad soo gasho shaqada soonka lagu shaqeynayo meesha lagu shaqeynayo waa inaad maxay boorsadaada ku ridato oo aad kursigaaga iyo hawshaada iyo waxaaga iyo shaqadaada qabsato weeyaan marka suuragal ma ahayn xilliga shaqada 15 saacadoodna waan shaqeyn jiray xilligan tareenka ama gaadiidka kale saaranahay ama shaqadeeda u socdo ama break time-ka saacada qadada xilliyadaasan alaabta iyo wax walbaan kala iibin jiray oo waxa weeyaan ma garanaysaa ayaan ka shaqeyn jiray shirkadan ku darso waxaan ahay waliba aabbo family aan ahay oo ma garanaysaa waxa weeyaan hadda wad arkaysaa walaalayaal dadkan oo dhan ee la soo hadlaya wad arkaysaan dhammaantood waa dad cusub oo doonaya fursado ganacsi doonaya weeyaan maan ogeyn maalintan bilaabay marka walaalayaal xilliyadaasan aanu ka faa'iideysan jiray sidii baan ma garanaysaa waxa weeyaan businesskaygii aan ku horumariyey markaas suuragali ma ahayn waqtigaasi waxay aan ogaaday muddadaan shaqadayda kale ku jiray in businesskani aan u go'o oo aan go'aan ku gaadhay waxaan go'aan ku gaadhay inaan u go'o businesskan waxyaabaha kale shaqada dhan iska gasal gareeyo laakiin maadaama contract socdaan ku guda jiray suuragal ma ahayn inaan degdeg ku joojiyo marka bishii 10aad ayaa waxay suuragashay contract-gaygii wiiga dhamaado aniguna waxa weeyaa shaqadeedii aan u soo madax banaanaado aan marka horeba daa hoostiisa ka waday ma garanaysaa bishii 11aadna waxaan noqday assistant manager isla bishii 12aadna waxaan noqday 2 bilood gudaheed manager bishii 3aadna ee sanadkanina waxaan noqday waxaan la gaariyay koobaad oo isaguna ilaa $400 muddo 3 sano ku soconaysa $14,000 ma sha Allah iyo sidoo kale bishii 5aadna waxa aan noqday sidoo kale bishaas waxaan ka mid noqday 10 qof ee ugu horeeya guud ahaan bay Imaaraadka ee Carabta oo dhan bishii 5aad ayaa la soo gaaray bishii 5aadna waxaan ka mid noqday 5 qof ee ugu horeeya guud ahaan bay Imaaraadka Carabta the 5 person man noqday maaha Soomaali waxaan ka hadlayaa waa Carab oo dhan weeyaan Imaaraadkii Carabta oo dhan weeyaan ma sha Allah tabarakallah soo kale darajada senior manager-ka oo aan maanta ahay ayaan u dalacay gaarigayga labaad baan helay oo isaguna ma garanaysa $20,000 waa isla bil gudeed waxa soo dhani isla markaana dalxiiskayga koobaad baan helay ma sha Allah tabarakallah dalxiiskan waxa loo yaqaanaa eagle manager maanta halkaas ganacsiga maraya maanta ganacsiga dhowr iyo 10 wadan buu ka shaqeeyaa walaalo badan ayaa maalin walba soo gala maalinta ugu yartahay 6 ilaa 7 qof ilaa 8 qof ayaa ganacsiga teamkayga soo gala maalinta ugu yartahay ma sha Allah oo aad iyo aad u ballaaran runtii aad iyo aad u si ballaadhay si barakoobay 700 qof ay maanta ku sii dhow yihiin 2 bilood ka bacdi waxaan filayaa in inta in ka badan ay noqonayaan ama laba jibaarmayaan walaaliyahan waan caawiyay maanta iyaguna ma garanaysaa ay si tafiirmay oo walaalo badan si caawinaya muddo yar gaaban gudaheed marka sanadkan gudihii waxa soo isbedel ah ayaa runtii aan rumeeyay waxaan ku rumeeyay waa hab online weeyaan walaalayaal anu ma joogo wadankii teamkaygana lama joogo badankood ma haddaan aanu kulanno oonu caadi live to live isku aragno kaliya waxa weeyaan social media ayaan ka wada soconaa oonu had iyo jeer kulanno ku yeelanaa weligay ismaanu arag badankooda ama 100% ismaanu arag teamkayga haddana waa adiga arkaya qof walba maanta waxa weeyaan dadka walaalaha baan nahay ee family-ga ah ma sha Allah tabarakallah waxa soo dhan ayaa sanadkan ay qabsoomay bal waxa weeyaan iyo haddana hiigsigayga iniga sheekeeyo hiigsigayga walaalayaal aad buu fog yahay ganacsigani waxaan ka rajeynayaa insha Allah ta'ala
inaan idiin noqdo walaalayaashaad ku dayan doontaan tusaale ini ah aan ka mid noqdo hamigaygu aad buu u fog yahay businesskan aan ka leeyahay haddii ilaahay qadaro ilaa iyo demand manager inaan ka gaadho ayaan rajeynaya haddii ilaahay qadaro ah darajada ugu dambaysa marka waxa weeyaan meel fog kama fikira meel dhow kama fikiraya meel fog baan ka fikiraya marka caawa waxaan raadinayaa dadkii diyaarka ahaa safarkaan galayo diyaarka ahaa inay la galaan biidnillahi kariim dhammaantiin diyaartiin baan rajeynaya walaalayaal insha allahu tacaala waanaad mahadsantihiin